xarafka n amanna waa qof aad ugu xariifa ka faa'iideysiga hadba waayaha iyo marxaladaha isbedbedelaya ee nolosha waa qof dareen feejigan aadna u hamo badan oo jecel arrimaha la xiriira jinsiga waxa uu mar walba jecel yahay in dadka aanu ka dhex bixin waxna la qaybsado laakiin waxa dhici karta arrintan daddex joogu inuu ku talax tago ay noloshiisu noqoto mid dadka iyo arrimaha bulshada la ciirciiraysa waa xaraf dadka caawiya aadna ugu faraxsan inuu dadka taageero waxa uu aad u aaminsan yahay isgargaarka iyo isxoojinta bulshada waxa uu fuliyaa wixii laga codsado ceebta ugu weyn ee uu leeyahay waxa ay tahay qof ku celceliya qaladka ka dhaca amaba se uu sameeyo oo aan inta badan casharra ka baran xarafka oo ama oo waxa uu caan ku yahay firfircoon waxaana lagu yaqaanaa xoogaa uu fiirsiyo waaqicnimo ah waa xaraf dhaqaale waxa aanu awood u leeyahay inuu ismuujiyo iyo inuu soo jiito dareenka iyo indhaha dadka kale waa qof aad isu badbedeli og waxaanu awoodaa inuu la qabsado duruufo kasta oo adag waa qof aaminsan arrimaha diinta markuu hadal jeedinayo waxa uu caan ku yahay caadifad xarafka q ama qa xarafkani waa xaraf aan caadi ahayn magaca uu ku jiro waxa uu sameeyaa dhadhan aad u sarreeya oo nololeed waxaa lagu arkaa xoogaa fikir xagga dhaqaalaha ah waxaanuu yaqaanaa habab aad u fara badan oo uu la qabsan karo nolosha iyo isbedbeddeladeeda waa xaraf lagu yaqaana inuu aaminsan yahay in awoodda jireed ay aasaas u yihiin nolosha in xooggiisa iyo dhismihiisa jidhkiisu ay furo u noqonayaan nolosha iyo wanaaggeeda ama sharafteeda waxa uu ku wanaagsan yahay shaqooyinka xorta ah waa xaraf aad u gala dembiyada iyo gafafka laakiin ma aha dembiyo ama gafaf wax burburinaya oo aan suuragal ahayn in dub loo saxo xarafka r ama ra waa xaraf awood badan waxa lagu yaqaanaa bini'aadannimo aad u fara badan waxa uu leeyahay awood fara badan oo ah madax bannaani dhanka adduunka inuu xooggiisa kula soo baxo maalka inta badan waa lagu soo hirtaa waxaase lagu yaqaanaa in aanay dadku ka dareemin hibada u gaarka ah waxa uu aad u jecel yahay caawinta dadka waxa lagu yaqaanaa go'aan adayg iyo dhiirigelin xarafka s ama sa xarafkani waxa uu noloshiisa ku dhammaystaa halgan u dhaxeeya guul iyo guul darro waxa noloshiisa ku jirta caqabado fara badan waxa uu aad ugu baahdaa in la difaacayo in la taageero waxa muhiim ah in la dhiirigeliyo si loo baro isku kalsoonaanta waa xaraf himilooyin fara badan leh dadkana ku dhiirigeliya inay himilooyin yeeshaan laakiin marnaba ma xasilo waana gooni socod daawadayaal intaasi waxaa ku eg qaybtii saddexaad ee xarafka ugu horeeya magacaaga iyo waxyaabaha uu sheegayo ee laga dheehan karo waxaana soo turjumay Kamaal Axmed Cali waxaan la socodsiinaya anigoo taajira tan iyo kulanti dambe waa Geeska Afrika oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo